waa masjid jaamaca weyn ee magaalada Caynaba waa kii ugu horeeyay ee laga yagleelo magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar waxa uu soo jiray muddo ku dhow hal qarni waqtigii masaajidkan dhisnaa waxa ka soo aflaxay wax ku soo bartay inta badan culimada diinta iyo aqoonyahanka kala duwan ee ka soo jeeda guud ahaanba gobolka Saraar kuwaas oo ku kala dhaqan daafaha kala duwan ee dunida haddaba masaajidkan ayaa haatan laga dayrinaya xaaladda uu haatan ku sugan yahay masjidkan oo ku yaala meel didiba ayaa waxay sababtay in ciidu ay cunto qaybaha hoose ee masjidkaasi isla markaasna ay soo faqfaqaan guud ahaanba qaybaha hoose ee masjidka dadka muxsiniinta iyagu masaajidkaasi gacanta hore uga hayn jiray ayaa muddo dheer waxay isku dayeen inay masaajidkaasi ay wax soo taraan isla markaasna ay dib u habeyn iyo dib u dhisid ku sameeyaan balse haatan waxa uu gaaray meel aan waxba laga qaban karaynin maraano booqanay masaajidkaasi ayaa waxaanu kula kulannay culimada diinta waaweyn ee gobolka Saraar waxayna walaac ka muujiyeen xaaladda uu haatan ku sugan yahay masaajidkaasi waxayna tilmaameen in haatan aanu masaajidku u baahnayn kabkabis iyo dib u habeyn dambe balse haatan loo baahan yahay in guud ahaanba dhismahan la bedelo meeshana laga dhiso dhismo casri ah waxayna baaq u direen guud ahaanba qurba jooga aqoonyahanka mas'uuliyiinta iyo cid kasta oo khayrka jecel waxayna ka codsadeen inay ka soo qayb qaataan dhismaha masjidka cusub ee laga yagleelayo halka uu haatan ka dhisan yahay masjid jaamaca magaalada Caynaba dadkii ugu horeeyay cid kasta oo Caynaba garanaysa masaajidka waxaan jiray intii wadanka la soo galay intii ka horeysay masaajidka qura magaaladu lahayd kulli waxaan filayaa qarni iyo bar meelaha inuu dhisan yahay kulli 100 sano waxba dheer inta uu dhisan yahay dhismaha de ilaa xilliga soo jiray oo wax ribeedinahoo lagu sameeyayna marba jirtay laga qaaday qoriga ciidii saaraa jiingad la saaray intii ka dambeysay waxba kale laguma darin waa dhagax didiba iyo dhoobo ayuu u badan yahay mar walba in la daba joogo rinji iyo sibir yar ayaa iminka lagu wadaayo lagu tukuminaya masaajidkaas de maanta masaajidadii la mid ahaa si masaajidkii Saalixiyada Burco waad aragteen masaajidkii Saalixiyada Laascaanood waa la arkay marka dadkii muslimiinta iyo waliba dadkii reer Caynabo iyo dadkii masaajidkan ehelka u ahaa ama imaamiyadii soo maray waa masaajidkii ilaa iyo walaaleeye lagu soo tukan jiray Sheekh Axmed raxmatullaahi calayhi Sheekh Maxamed Ismaan Macallin Xirsi Axmed oo ugu dambeeyay iyo iminka oo deeyn taaganahay intaas oo dhan waa masaajid qadiimi ah wuxuu u baahan yahay marka in la isgaarsiiyo oo wixii muslimiin ah ama masaajidka garanaya ay wax ka soo qabtaan siba waxaan aad ugu sii doonayaa inaan u sii xusuusiyo dadka reer Caynabo ilmo Macallin Xirsi Maxamed Macallin Xirsi Umar dhamaantood waxa weeyaan de maanta hadii ay iyagu dhaqdhaqaaqaan waxa laga yaabaa inay meelo badan u garaaci karayaan oo dad muslimiin ah oo badan oo khayrka doonaya ay heli karaan oo wax la qabta laakiin hadii aan la dhaqdhaqaaqin waxa weeyaan de wuxuu noqonayaa meel iska duntay sida aad arkaysaan qaraabadihii dhinacyada ka xigayba ay u wada duman yihiin magaalada Caynabo la oran jiray ee markaa uu masaajidka u haana hadda isaga ayuunba ka sii jira waana masaajidka iminka ugu badan ee dadka reer Caynabo ay ku tukadaan wuu buuxsamaa inta badan waxa weeyaan waa masaajidka ugu badan waayo waa masaajidka qadiimiga ahaado cid waliba ay garanayso qof kasta oo xitaa sadcaali wuxuu ku soo talagelayaa inuu masaajidkii ku sii tukado Caynabo uu garanayay sidaas daraadeed waxaan doonaynaa masaajidka iminka in dee casriga lala jaan qaado si fiican loo dhiso oo maanta dee dabaqyo laba dabaqyo saddex dabaq baa la marayaa dee dhoobo is saaran iyo biyo darooraya dee ma jirto masaajidda lagu tukadaa dadku markaas xoolahoodii waxay gashanayaan de masaajidda waana meel xoolo la geliyo meesha ugu khayrka badan nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu man bana masjidan bana Allahu fil jannati baytan qofkii markaa guri masaajid dhisa ilaahayna jannada ayuu uga dhisaa guri ilaahayna subxaanahu wa ta'ala wuxuu inoo tilmaamay dadka masaajidada caamire ee maalkooda geliya hagaajiya waa dadka un markaas iimaan kale inama ya'muru masajid allahi man amana billahi wal yawmil aakhir marka waxaan leenahay dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan gaar ahaan kuwa reer Caynabo iyo kuwa haru ahaan jiray reer Caynabo iyo kuwa hadeer ahba inay masaajidkaas soo walaaq jaan qaado masaajidada kale cusub de maanta
lagu tukanayo waddanka iyo masaajidadii hore ee uu la faac ahaa burco iyo dee laascaanood iyo la wada garanayo waa in dee maanta dhulka laga qaado la hagaajiyo masaajidkaasoo uu runtii ka muuqdo dayac fara badani xilliga la dhisanay ahayd xilli aad u horreysay sidaa daraaddeed masaajidkaan soo gudbinayna waxa weeye masaajidkaas wuxuu u baahan yahay in la dayactiro oo wax laga qabto dhismihiisu waa dhismihii hore waxaa qof walba markhaati ku filan dee qaraabadahan iyo heeraha ka xiga xilliga la dhisay unbaa isna la dhismaha lagu dhisay waqti waxaasunbuu ahaa dee waa kuwa dhismayaasha la midkaa burburay waa dhismayaashii hore aan maanta qaabkan aan isticmaalo weeyaan waa dhoobo iyo dheged baa ku jira masaajidka dhoobo iyo dheged laysa saaray uu ahaa dushana marka kadib sawirka laga mariyey wax ayaabaacankaas waa qaabkaasuu dhisnaa qaadir maanta albaabadii waa burbursan yihiin siliigii waad aragtana biyaha jingada biyaha soo daynaysa dee dayac fara badan baa ka muuqda masaajidkan waa masaajidkii macalin xirsi allaha u naxariistay dee ardayda faraha badan ka soo baxday ragga ka soo baxay aan garanaynaa maanta ardayda ka soo masaajidka madrasadda ka baxday iyo macallinkii iyo intuu masaajidka u dhisnaa iyo sidii masaajidku oo dayacan yahay sidaa daraaddeed waxaan codsanaynaa masaajidka qof allaale cid wax ku darsan karta in masaajidkaanu gacan saarno oo masaajidkaanu wax ka qabanno insha allahu tacaala waxa weeye dee uun baaqan maanta halkan aan isugu nimi ee salaada casr dabadeedii aanu ka hadlaynaa waxa weeye waa dayactirka masaajidkii macnaha qadiimiga ahaa ee Caynaba sida culimada uga horreysaba ay ka dhawaajiyeen dee waa masaajidka macnaha taariikhda iyo xilliga iyo waqtiga ku sinaa intaaba sida macnaha sheekh aadan axmed uga horreeyay uu maanta uu sheegayo waxa weeye waxaanu ku wadnaa dee milil guudkii lama dhayaa ayaanu ku wadnaa waxa weeyaan marka rooggan yar cas ee macnaha aan dul taaganahay ha eeganina hoosta imanka haddii laga qaado waxaad moodaysaa macnaha abjad macnaha bahalka abjadka la yidhahdo waa aragteen marka abjadka la samaynayo maro 100 maro oo kala kaankaana ayaa la soo qaadaa sida suuf aloolka bahalka la yidhahdo oo kale suufkii aloolka oo kale weey waxa weey halkii laga qaado roogga laga qaadaba waxa saaran ragcad laba tallaabo dhexdoodba ragcad baa saaran waa wada ragcadaha waxa koos gareynaya oo keenaya oo macnaha ay ku timina wax weeye dhismaha meesha laga dhisayay ee markaas cunayay ayaa wuxuu ahaa dhoobo macnaha dhegad iyo sagxadda waxa la dhigayay oo dhegedka ahaa ilaa iyo macnaha lagu masaxayona inta yar ee sibirka ee dusha mooyaane waa wada dhegedun dhegedkuna cilada uu leeyahay waxa weeye wuu tarmaa oo wuu bararaa isaga ayaa macnaha kubciya marka wuxuu samaynayaa in 6 biloodba uu macnaha meeshii maanta la ragcay in isagu laqo oo meesha ay meel hoose gasho meeshiina ay dabeedna ay noqoto meel sare oo soo taagan dabeedna weligeedba waxa lagu jiray oo masaajidka in dhexdiisii in la qodayo ayuu baa lagu jiray dushiisa waa arkaysaa macnaha sida kamarada ka arki doontaan dhulalka maartay ay soo daadisay maxay hayto siliigu soo daatay siliiga soo daadanay oo dusha macnaha jiingada oo macnaha de raagtay iyo qorigii oo raagay waxaas oo dhanna marka dabayshu maartay ay xilliyada dabayshu ay jiraan dabayshan ay dalaxayso ee jiingada ku tuurayso halkii ay ku ay saarto dabaysha ay saarto dabayshu dhaska ay saartaa dhegedka yar ee jiingada qabsanaya marka roobku ku helo way goynaysaa meeshii annagu wax iba wada midaxa dabadeedna wax kasta waxay ku noqonayaan qabyo taagan oo macnaha aan cidina u maqnayn ee la u qodnayn bay noqonaysaa marka sidaa maartay culimadu ay sheegayaan waa masaajidka ugu dadka badan leh waa masaajidkii ugu horreeyay markaan leeyahay ugu dadka badan leh waxa weeyaan marka inta la garanayo ee dhowdhowba marka laga soo raaco ilaa walaaleeye ilaa iyo maxay ahayto macalin xirsi u dambeeyay cidda ay wax bareen iyo cidda ka aflaxday caalamka daafihiisa oo dhan way joogaan cid kale haddii aanay macnaha ulaba eersan ama aanay ula tegin iyaga ayaa ku filan maalin dhexdaas halkan waxaa nagula tukaday wiil yar oo macnaha dhalinyaro ah baa nagula tukaday Mareykanka iyo meelahan ka yimi wuxuu yiri awowgay ayaa macnaha masaajidkan ka soo aflaxay oo ka soo baxay wiil awowgay ayaa ka soo aflaxay marka waxa weeye ducadii masaajidkan macnaha bahaya uu ka qaatay ee awowgay isaguna uu ka dhaxay ayaan isaguna ka dhaxal marka sidaa darteed waxa ilaa inta aan soo baafinay wiil masaajidkii awowgay ka soo baxay oo ku aflaxay inaan ku soo tukado marka waa masaajidka noocaas ah marka hadan cid kale waa macnaha islaamka kaleba macnaha hadii aanu isagu aqoon u lahayn inta aqoonta u leh ayaaba ku filan lahayd oo maanta masaajid la baafiyo oo la yiraahdo war u kaca demu ahaadeen ehelkiisii oo dhan baa cid walba ka buuxay ehelkiisii dawaa wada joogan laakiin hadana waa lagu sii kala xaq leeyahay haloo kaco ayaan leenahay oo macnaha masaajidka xilaha la isaga saaro kale culimada iga dambaysa ayaa wixii macnaha aan dhaafayna macnaha ku dari doonta marka waxaan leenahay annagu waxaanu ku haynaa masaajidkii oo aanu imaka macnaha aan aad iyo aad ugu il daran lahay oo aanu jecel lahay
ninkii macnaha isagu wax ku darsanaya isaga ayaa leh ninkii macnaha hadalkayagaasu gaadhowba ama mid macnaha masaajidka u abtirsanayay noqo ama mid aan u abtirsanay noqo ninkii hadalkayagaasu gaadhow ama shaashada naga arkow waxa weeye halkii dhabta ahayd ee laysaga yeedhi lahaa ee qof islaama looga yeedhi lahaa ayaanu ka baaqaynaa ka soo qayb gala sidaad ka arki doontaan qaraabadihii iyo guryihii hore ee masaajidka hareerihiisii dee wuu ka hadhay waad arkaysaan wuu ka hadhay waad arki doontaan oo shashadaad ka arkaysaan qaraabada inta waxa ku hareeraysan dee waa wada yacni dhul dumay iyo qaraabada laakiin isaga wuu ka hadhsan yahay ha ka hadhsanaadee waa dhismihii hore aduu gacankuhaynta ribeerhka marba wax lagu samaynayay baa ayaa dee uga hadhay dadka muslimiinta ah meelay joogaanba waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan oo maalkooda ay geliyaan oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ay ugu dhowaadaan oo ciddii abaabul wadda sida lay sheegay dhallinyarada aan in badan garanayo oo dibadda joogta oo uu ka mid yahay cismaan macalin xirsi axmed oo uu ka mid yahay mustafa siciid barre sida lay magacaabayay saleebaan rag noocaas ah intii markaan garanayo iyo intii markaa aanan garanaynba waxaan leeyahay abaabul ha loo sameeyo ilaahay tabaaraka wa tacaala dartiisa ha lagaga qayb qaato adduunyada iyo aakhiraba yacni waa lagu faa'iidayaa waana wax laga shaqeeyo wixii ugu fiicnaa marka waxaan leenahay khayr allah ha idin siiyo dalka dabadiisa iyo gudihiisaba iyo dhammaan dadka muslimiinta meelay joogaanba ha laga qayb qaato oo ilaahay tabaaraka wa tacaala qofku siduu xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee uu sheekh aadam uu sheegayay qofkii guri dhisa yacni masaajid dhisa ilaahay jannaduu guri uga dhisaya jannada ayuu ilaahay guri uga dhisaya marka rabbi tabaaraka wa tacaala in loogu dhowaado oo loo ururiyo waad arkaysaan oo yacni sawirkaad ku arki doontaan dayac iyo waxyaabaha ka muuqda marka waxaan leeyahay ilaahay tabaaraka wa tacaala ha inoo fududeeyo dee ha laga qayb qaato dadka muslimiinta dhammaan meelay joogaanba aad aragtaan waxa weeyaan waa masaajid waa baytullaahi raxmaan yacni waxa weeyaan taariikhdiisana sida la sheegay dee waa la garanayaa waxa weeyaan waa masaajidkii saalixiya waxa weeyaan yacni waxa weeyaan dhismihiisa waxa weeyaan dee taariikhdaasuu soo jiray waxa dhowdhoobaya maaragtaan ku joognaa waxa weeyaan waa cibaadada iyo guriga ilaahay sidaa darteed waxa weeyaan caalamka waxaan ugu baaqaynaa dadka maaragtay yacni waxa weeyaan inay maaragtay masaajidka soo caawiyaan inay maaragtay yacni waxa weeyaan guriga ilaahay qof kasta waxa weeyaan wuxuu ka helayaa wax maaragtay wanaagsan haddaba dadka khayrka jecel iyagu doonaya inay arrintaasi ka qayb qaataan wixii tabarucaad ah ay awoodaan waxay ku soo hagaajin karaan lambarrada shaashadda ka muuqda